waxaad maxamed aadan jimcaale koofi lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay xadista ama lunsiga dakhli dhan 3,540,118 oo ka soo xarooday baasaboorada iyo dalku jooga gobolada Soomaaliya. waxaad horay maxkamadda ugu sheegteen in aadan helina akoono uu isticmaalo maxamed aadan jimcaale koofi garaan xasan Soomaaliya. akoono uu leeyahay maadan helina maynan helin. indhahaagana kuma arkin maxamed aadan jimcaale oo lacag ay dowladdu leedahay qaadanaya Soomaaliya. mayo maanan arag. lacagtan 3,540,118 maxamed aadan jimcaale keligiis miyaa qaba? maya. meequu ka qaba isaga? waxaan u fahmay lacagtaasi inta uu ka qabo ma taqaanaan, taasaan u fahmay. dabcan waxaa sii faahfaahinaya inay xasan inta baasabor service la bixiyo waa intaan asaga ku eedeysan. 3 milyan keligiis ayaa qaba miya? gudoomiye waa lagula eedeysan yahay oo lacagta mas-uuliyaddii iyo maaragtay adeegan keligiis ma qabaneyn. exactly intuu asaga uu qaato ma sheegi karno, ma cadday karno. waa ka gudbaynaa. haddii aadan arkina intaa baarista wadeen akoonna uu koofi leeyahay oo isaga oo lacagta qaadaya aadan arkina, sidee ku ogaateen inuu lacagtaasi wax ka qabo? waa mahadsantahay, su-aal maaragtay muhiima waaye. maadaama aan naqaano tiradii baasaboorada la bixiyey muddo xileedkiisii intii uu joogay, lacagihii iyo reydadkii laga raba haddaan naqaano, muddo xileedkiisii reydadkii kala duwanaya soo maray, iyo lacagihii dowladdu dhac markaan isku fiirino, dabcan farqi halkaas ka soo baxayo muddo xileedkiisii. marka intuu ku eedeysan yahay oo lacagta ku maqan waa intaas macna. waayahay, waxaad sheegteen lacagtaasi inuusan maxamed aadan jimcaale keligiis inuusan qabin oo dad kale ay la qabaan. waxaan rabaa magacyada dadkaasi inaad ila wadaagtid. hebel hebel hebel. dabcan qofka kala shaqaynayay akoonka brefetka lacagiisii kusoo dhacayeen waa agaasimihii u qaabilsanaay maamulkii maaliyadda cabdikaafi. lacagtaani aada u jajabiseen ilaa aad gaarsiisaan $8 aad kusoo dartaan. waxaa ii sheegtaa labadooda sida u kala qabaan, macnaha cabdikaafi intaasuu qabaa, koofi intaasuu qabaa, ii sheeg macnaha kala qaad, maadaama aad leedahay labadooda oo keliya ayaa u malaynaya inay qabaan. exactly intuu asaga uu qaato ma sheegi karno, ma cadday karno. waxaad sheegteen in lacagtaasi muddada la dhacayay inay u dhexaysay 1 bisha 1 2018 ilaa 3 bisha 10 2021 soo maaha? asaanta 2023. ma noo sheegi kartaa taariikhaha saxda ah ee inala tahay in maxamed aadan jimcaale uu lacagtan gaar ahaan qaybta uu lunsaday inuu lunsaday taariikhda? dabcan sidaas hadda maaragtay kumarta ayadoo cumulative aan maaragtay haddan haynaa, ayadoo maaragtay dheeraad loo baahdana waa ka shaqaynayna, waxay u baahantaa maaragtay. waaya aan ka gudbo. maxamed aadan jimcaale ma ahayn sargaal maaliyadeed oo lacag qabta soo maaha? ma arkina qoraallo ay isdhaafsadeen maxamed aadan jimcaale iyo saraakiisha la shaqaynaysay ku-xigeenadiisa oo ay ku maleegayaan lunsiga hantida dowladda. tusaale ay ku leeyihiin waxaan rabnaa lacagtan inaan dhacno, maadan arkina soo maha qoraallo noocaas oo kale ah? maynan arag. waayahay, ma haysaan codad ay isdhaafsadeen maxamed aadan jimcaale iyo saraakiisha ka hooseysay oo la xidhiirta xadista iyo qaybsashada dakhliga aad sheegaysaan soo maha? maya. intii uu agaasimaha hay-adda socdaalkii jinsiyadda ahaa, ballaarin xooggan ayaa hay-adda lagu sameeyey dal iyo dibad ayna xarumo cusub ka furatay soo maaha? intaan ognaa baaritaankiina kuma ogaanina lacago uu maxamed aadan jimcaale si shaksi ah u qabtay kadibna akoonno uu leeyahay ku shubtay soo maaha? maya. waayahay, xilliga ay bilaabatay qaadista lacagtan $10 ma taqaanaa soo maaha? intii muddo baariseedkana naqaanaa, ka hor ma naqaano. ma taqaana xilliga bilaabatay. xafiiska antidhowrka qaranka haddii uu galo tuhun la xidhiira in la lunsanayo hantida qaranka, baaris ayuu sameeyaa, wuxuuna ka takhalusaa dhaqanka uu ka shakiyey
ee lagu lunsan karo hantida qaranka soo maaha inuu ka takhaluso way taa ha lacagtaas $10 ah ee aad sheegteen in si sharci darra ay hay-addu u qaadaysay weli waa la qaadaa soo maaha ma ogaa karna taan lacagta $10 oo aad sheegaysaan in la qaatay ma noo sheegi kartaan cadad ka tirsan $10 oo agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan jimcaale uu si gaara u leexsaday akoonna uu gaar u leeyahana uu ku shubtay soo maaha maya waay waayahay waxaa sheegtay in xarumo ka badan ilaa 70 in lagu daabaco baasaboorka horena waxaad u sheegtay in la kala qoondeeyey lacagaha ay dowladda iyo shirkadda kala qaadanayaan maadaama shirkaddu lacagteeda ay qaadanayso dowladduna lacagteeda ay qaadanayso maxaa lagu daabacayaa baasaboorka lacagta lagu daabacaya baasaboorka xaggee ka imaanaysa okata aada u mahadsan tahay hay-adaha dowladda waxay leeyihiin miisaaniyad miisaaniyaddaasaa waxay dabooshaa baahiyahooda waxaad ii sheegtaa tirada miisaaniyadda loogu talagalay samaynta baasaboorka ee sanad kasta loo shubaya hay-addaas awkaata dowladdeenu waxay bixisaa waa running cost waaye hay-adaha dowladduna siday ku helaan aaday u adag tahay maadaama aan lacag badan la haynin waxaan kuu xaqiijinayaa midda kale marka baasaboorka garbadkiisa iyo warqadihiisa iyo printerkiisa waxa baxsado shirkadda daabacaysa halkaas marka waxaa daboolmaayo baahi kastoo dhinaca kasta ka jirta oo lagu qaadan karo ama lagu xalaaleyn karo lacag kale oo dheeri ah lacagaha ka soo xaroonaya baasaboorka ee muqdisho qaybta dowladda waxaa mas-uul ka ahaa wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadduna shaqo kuma lahayn soo maaha maya ma jirto warbixin baariseed tilmaamaysa in agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda maxamed aadan jimcaale uu musuq faraha kula jiray oo xafiiska hantidhowraha qaranku soo saaray intii uu xilka hayay hantidhowrihii hore ee qaranka maxamed maxamuud cali afgoy soo maaha ma jiro hantidhowrahaas aqoon iyo khibrad ayuu u lahaa shaqada noocaana soo maaha ha baasaboorada tiradooda aad ku sheegteen 432,326 ayaa la daabacay intii uu agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ahaa koofi soo maaha ha la enrool gareeyey la diiwaan geliyey in la enrool gareeyo baasabooradaas waxay aheeday shaqo laga sugayay maamulka iyo shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee ma ahayn faldembiyeedyo uu koofi galayay soo maaha maya baasaboor kasta oo la enrool gareeyey lacag ayaa laga qaaday soo maaha ha baasaboor kasta lacag ayaa laga dhacay miya maya ma ii sheegi kartaan tirada baasaboorada lacagta laga dhacay intaas horoo la maqan sidee lagu garan karaa ma maal awaalan sameynaa ma samayn kara aniga waxaad maxkamadda u sheegteen waxaan u malaynaya gaaraan xasan inuu yahay in maxamed aadan jimcaale koofi uu wargelin u diraya cabdikaafi uu ogeysiin siiyey wasiiro ka tirsan dowladda soo ma qadaas waa jirtaa waaya maxamed aadan jimcaale waxa uu wasiiradaas ka sarreeyey ee shaqadaas ay khusaysay ogeysiinayey in uu xatooyo xoolo dadweyne sameynayey miya maya waaya waxaad aaminsan tahay in maxamed aadan jimcaale lunsaday lacag dowladeed waadna jeclaa laheyd in ciqaab adaga lagu rido soo maha ha ha waa maadsantaha ha